isu ahaayeen col iyo cadaawo muddo qarniyaal ah waxaa dhex maray hardan dhiig leh iyo dagaalle riday dhowr boqortooyo ma qamcin khilaafka ka dhexeeya ilaa mid kala holco ka dibna uu iska horimaadku hulaaqo mar kale waa dhaxal iyo sooyaal dheer oo ku saabsan tartan taariikh dhiig leh oo horor ah iyo xaasidnimo guun ah oo soo laba kaclaysa aan kuu sheegno waxa ay waajibka tahay inaad ka ogaato jiridda khilaafka u dhexeeya sacuudiga iyo turkiga gugii carabta dilkii kaashokji iyo dagaalka turkigu wado ee ka dhanka ah kurdiyiinta ee ka socda waqooyiga suuriya waa 3 arrimood oo ka dhashay figta sare ee khilaafka sacuudiga iyo turkiga kaas oo asalkiisu dib ugu noqonayo wax ka badan 200 oo sano xilligaas jasiiradlamoodka carabta waxaa xukumayay dawladdii cuthmaaniyiinta waxaan dhihi karnaa gacan ku haynta cuthmaaniyiinta ee si guud jasiiradda carabtu waxay ahayd mid daciif ah marka la joogo gobolka dhexe ee najda maba jirin gacan ku hayntaas jasiiradda carabtu xilligii cuthmaaniyiinta waxa ay u qaybsanayd 3 gobol gobolka bari oo dawladda cuthmaaniyiintu u xukumaysay si dhammaystiran gobollada dhexe oo aan cuthmaaniyiintu ka talin iyo gobollada galbeedka oo ay ku jiraan magaalooyinka Makka iyo Madiina al-Munawwara kuwaas oo haystay wax u eg ismaamul hoosaad ha yeeshee waxa ay ku jireen baycadii magaca oo keli ah ahayd ee boqor Cusmaan dhulka dhaca wadnaha jasiiradda oo ah dhul qallalan waxa uu u qaybsanaa qabaa'il ku hardamaya awoodda ilaa laga soo gaaray afartameeyada qarnigii 18aad iyada oo bartamaha looga jiro dhammaan arrimahaas murugsan ayaa waxa soo baxay hoggaamiye diimeed loogu yeedho maxamed bin cabdilwahaab kaas oo dib u soo celiyey soo noolaynta afkaarta islaamiga salafiga ah waxa uu dagaal la galay dad uu ku magacaabay murtadiin ama kuwa ka laabtay diinta iyo mubtadiciin ama kuwa ku soo daray diinta waxaan ka mid ahayn dagaalkiisii waxa uu dhinac ka gaaray muslimiinta shiicada dhinac kalena waxa uu ka gaaray dawladdii cuthmaaniyiinta oo uu ku dhalleeceeyey inay bidcinnimo ku wadaan diinta sababna waxa uu uga dhigay inay haystaan aragtida diineed ee tasawufka ayna weyneeyaan qabuurta ama daharrada halkan ayayna ka bilowdeen dhimbilaha hardankii koowaad ركلة البداية قيام الدولة السعودية ina cabdiwahaab waxa uu isbahaysi la samaystay hoggaamiye beeleed lagu magacaabo maxamed bin sacuud kan hore oo ah ina cabdiwahaab waxa uu taageero diineed siinayaa kan labaad maxamed bin sacuudna waxa uu u adeegayaa qorshaha diiniga ah ee kan hore si gaar ah dhinaca siyaasadda heshiiskii koowaad oo gaaraya dhammaan reer aalasheekh iyo dhammaan wiilasha iyo dhasha ibnu cabdilwahaab waxa uu sii dhararsanaa siina gaaray wiilasha iyo dhasha maxamed binu sacuud oo xilligaas ahaa amiirka magaalada darciya isbahaysigaas awgii waxaa dhashay dawladdii koowaad ee sacuudiga oo degtay magaalada darciya sannadkii 1744 sannadkii 1801na dawladdii sacuudigu waxa ay ku duushay bulshada muslimiinta shiicada ee ciraaq iyo ilaaladii dawladda cuthmaaniyiinta ee joogtay magaalada karbala waxa ay isku dayeen inay bartilmaameedsadaan magaalada barakaysan ee Makka oo ahayd astaanta qarannimada cuthmaaniyiinta ee diinta cuthmaaniyiinta ayaa ka fal celiyey duulaankaas iyaga oo adeegsaday wadaygoodii maxamed cali baasha oo ahaa guddoomiyihii cuthmaaniyiinta ee Masar xukumiga sannadkii 1811 sidaas awgeed waxaa laga takhallusay oo la dumiyey guud ahaanba dawladdii koowaad ee sacuudiga waxaana la toogtay boqorkii ugu dambeeyey ee dawladda sacuudiga farac kale oo ka tirsan qoyska aalu sacuud ayaa soo celiyey dhismaha magaalada darciya waxa ayna qabsadeen jasiiradlamoodka carabta mar kale sannadkii 1843 cuthmaaniyiinta ayaa mar kale soo farageliyey sannadkii 1871 iyaga oo markan adeegsanaya isbahaysi ay gudaha jasiiradda ka samaysteen waxa ay taageereen qabiilka aalurashiid oo qabtay hawsha rididda dawladdii labaad ee sacuudiga
sannadkii 1891 arrimuhuna waxa ay u socon lahaayeen sida ay cuhmaaniyiintu rabaan haddii uusan dhici lahayn dagaal aad u weyn kaas oo gobolka iyo adduunkaba dhinaca kale u rogay waa dagaalkii koowaad ee adduunka markii uu qarxay dagaalkaas oo ay cuhmaaniyiintu ka qayb galeen aali sacuud waxa ay heleen fursad aad u wanaagsan oo ay miiska dhinaca kale ugu rogi karaan wixii dhacayna waa waxaan soo socda cabdulcasiis bin sacuud aabbaha boqorka sacuudiga ee hadda boqor salmaan ayaa kaashaday ingiriiska si isaga oo ku hoos jira calanka ingiriiska uu ula dagaalo xukunka cuhmaaniyiinta isbahaysigii sacuudiga iyo ingiriiskuna waxa uu kaalin ka qaatay in cuhmaaniyiinta si kama dambays ah looga eriyo jasiiradda carabta sannadkii 1924 waxaa si rasmi ah u dumay khilaafadii cuhmaaniyiinta sannadkii 1932kiina waxaa dhismay dawladdii saddexaad ee sacuudiga taas oo ilaa maanta jirta عقود المد والجزر horraanta soddomeeyadii turkiga casriga ah ee hadda jira ayaa dadaal badan geliyey sidii uu xidhiir diblomaasiyadeed ula yeelan lahaa sacuudiga ha yeeshee turkigu waxa uu in badan ku dadaalayey inuu xidhiir istaraatiijiyadeed iyo mid dhaqaale oo ballaaran la yeesho reer galbeedka marka la garab dhigo dunida carabta waxa uu ku biiray nato sannadkii 1950kii balse xaalka iyo sidii jirtay ayaa bilowday inay isrogto ama isbeddesho lixdameeyadii iyo toddobaatameyadii iyada oo turkigu qaaday tallaabooyin wanaagsan oo uu ku xoojinayo xidhiirka kala dhexeeya bedka ku gadaaman ee dunida muslimka iyo carabta sannadkii 1969kii turkigu waxa uu ku biiray ururka iskaashiga islaamka oo ku dhismay taageerada sacuudiga kor u kac iyo hoosu dhac ayaa hareeyey xidhiirka sacuudiga iyo turkiga waxaana hagayey baaxaadegga iyo isbeddelka siyaasadda turkiga si gaar ah afgembiyadii militari ee ka dhacay turkiga siddeetameeyadii iyo sagaashameeyadii شبح التنافس يطل مجددا sannadkii 2002 xaalka siyaasadeed ee turkiga ayaa isu rogay si wax ku ool ah iyada oo uu talada qabtay xisbiga cadaaladda iyo kobaca kaas oo lahaa halbeeg islaami ah xisbigan oo ay hortumintiisa ugu horraysay dib u soo celinta dhismaha xidhiirka turkigu la leeyahay waddammada carabta iyo kuwa muslimka uuna ka jiray gaabis la taaban karo oo dhinaca xidhiirka ah ayaa bartamaha jidkii loo mari lahaa waxaa ku qarxay bam weyn sacuudiga ayaa dumiyey oo dhulka la simay qalcaddii ajyaad ee taariikhiga ahayd ee cuhmaaniyiinta taas oo ku tiil magaalada barakaysan ee maka tallaabadaasina waxa ay hurisay khilaaf diblomaasiyadeed oo aad u qoto dheer kaasoo dhex maray labada waddan waxa uuna khilaafkaasi soo nooleeyey tagto hore oo loo haystay in labada dalka gudbi doonaan ha yeeshee iskudayga isu soo dhowaanshuhu ma istaagin waxaana xoojiyey duulaankii maraykanku ku qaaday ciraaq sannadkii 2003 boqor cabdulaahi bin cabdulcasiis ayaa booqday turkiga sannadkii 2006 si uu u noqdo boqorkii ugu horreeyey ee sacuudiga ee booqda turkiga laga soo bilaabo sannadkii 1966kii taas beddelkeedana ra'iisul wasaaraha turkiga rajab tayyib erdogan ayaa booqday sacuudiga 4 mar intii u dhexaysay sannadihii 2009 ilaa 2011 waxa ay ahaayeen xidhiirro diblomaasiyadeed oo aad u ballaaran kuwaas oo kaalin ka qaatay kobaca maalgashiga iyo ganacsiga labada waddan si ay kor ugu kacaan waxyaabaha turkigu ka soo dhoofsada sacuudiga kuwaas oo gaaray 3.6 bilyan oo dollar sannadkii 2012 ربيع العرب وشتاء السعودية si degdeg ah iyo weliba qaab hanjabaad ku ah sharciyadda nidaamka ku dhisan boqortooyada keligitaliska ah ee ugu culus adduunka oo dhan ayaa gugii carabtu waxa uu noqday balaayo marka loo eego riyaad kacdoonnadii waxa ay awoodda dhowr dawladood oo lafdhabar ah isla markaana carab ah u soo xambaareen jamaacada ikhwaanulmuslimiin masar ayaa ugu horraysay dawladahaas taasina
waxa ay nidaamka boqortooyada sacuudiga ku riday walaahow ankara waxa ay la macaamishay soo koridda awoodda ee islaamka siyaasiga ah waxa ayna u aragtay fursad ay suurtagal tahay inay isbahaysi la samayso dawladaha awoodda soo koraya kuwaas oo ay aragti ahaan isu dhow yihiin mawqifkaas turkiguna waxa uu kordhiyey saska sacuudigu ka qabay turkiga balaayadii sacuudigu filayeyna waxa ay ku dhammaatay dhicisaynta gugii carabta oo ka dhacay masar isaga oo taageero ka helayey sacuudiga iyo imaaraadka حتى لو لا نشرب ولا نأكل في هذه البلد إلا وجبة واحدة في الشهر فإننا معك afgembi militari oo uu hor kacayey sarreeyagaas cabdulfataax assiisi ayaa sababay in la rido xukuumaddii ikhwaanka bishii julaay sannadkii haadaantii u dhexaysay riyaad iyo ankara aad ayay u sii kala fogaatay labada dhinacna waxa ay galeen iska horimaadka wakaaladda si mid walba u xajisto gacan ku haynta iyo ku sarraynta siyaasadda gobolka صافرة النهاية صعود الملك سلمان bilashadii salmaan bin cabdilcasiis ayaa qabtay xukunka sacuudiga kulan ayaa dhex maray isaga iyo ordoqan waxaana muuqatay in wadahadalka labada dhinac uu hoosta ka xarriiqay in la laabo bogga ku tartamidda bariga dhexe kadib gugii carabta balse isu soo dhowaanshahaas oo soo gooyey jid dheer wakhti badan siima jirin turkiga waxaa si tartiib ah ugu caddaatay in dabaysha sacuudigu u kacday meel ka fog sida ay rabaan doomaha ankara arrinkaasina waxa uu ku soo beegmay markii xilka dhaxalsugaha boqortooyada sacuudigu u gacan galay maxamed bin salmaan turkigu waxa uu saamayn imaaraad ka dhex arkay siyaasadda sacuudiga amiirka dhallinyarada ahna waxa uu u arkay una aqoonsaday hankoolka siyaasadda maraykanka taasina waxa ay sababtay inuu xumaado xidhiirka labada caasimadood حصار قطر dabayaaqadii dawladaha sacuudiga imaaraadka masar iyo baxrayn ayaa go'doomiyey qatar waxa ayna ahayd tallaabo kedis ah oo cakirtay gobolka oo dhan si degdeg ah ayay ankara u soo faragelisay xaalka si ay u caawiso dooxa ujeeddaduna waxa ay ahayd in la baabbi'iyo saamaynta go'doominta ma ahayn oo keliya ah in loo furo wadda ay u marto qatar dhinaca cirka si loogu sahlo sahayda badeecooyinka balse sidoo kale waxa ay ahayd dhaqangelinta heshiis taariikhdiisu dib ugu laabanaysa sannadkii kaas oo ku saabsanaa dhismaha saldhig militari oo turkigu leeyahay oo laga hirgeliyey qatar ankara intaas oo keli ah kuma gaabsan waxa ayse u degdegtay inay maal gashato saamaynta go'doominta iyo welwelkii hayay dawladaha deriska ah sidaas awgeed ankara waxa ay xoojisay xidhiirka iyo iskaashiga militari ee kala dhexeeya saldanadda cumaan waxa ayna heshiis militari oo cusub la saxiixatay kuweyt iyo urdun خاشقجي فرصة من ذهب horraantii oktoobar waxaa dhismaha qunsuliyadda waddankiisa ee magaalada istanbuul lagu qaarajiyey qoraagii sacuudiga u dhashay ee jamaal khashogji waxa uu ahaa dembi bahalnimo ah kaas oo ay qiratay xeer ilaalinta sacuudigu goor dambe xeer ilaalintu waxa ay eeddaas dusha u saartay dad ay ku sheegtay inay ka gudbeen awooddooda marka loo fiiriyo ama loo eego turkiga dhibaatada dilka khashogji ma ahayn mid ku soo aaday wakhti sidaas ugu xun turkiga diblomaasiyadda turkigu waxa ay ku qasbanayd inay khafiifiso lahjadda hadalkeeda ku wajahan reer galbeedka iyada oo la xidhiirinayo dhibaatada hoos u dhaca qiimaha lacagta liiraha kor u kaca celceliska sicir bararhka iyo fadhiidnimadii ku lamaansanayd xisaabta furan ee dawladda turkiga sida loo badinayo waxa ugu dambeeya ee madaxweynaha turkigu u baahnaa ilbiriqsigaas in arrintu noqoto waxa ay ahaayeen in arrintu noqoto dhibaato diblomaasiyadeed oo kala dhexaysa sacuudiga ha yeeshee haddii uu jiro hal siyaasi oo awooda inuu holaca iyo naarta diblomaasiyadda u rogo dheef weyn waxa uu noqon doonaa siyaasigaasi rajab dayib erdogan sababtuna
waa sooyaalka uu haysto ee ugu jira diiwaanka oo ay ka buuxaan ka macaashidda dagaallada istaraatiijiyadeed ee dhaadheer intii lagu jiray la tacaalidda qadiyadda dilkii khaashokji iyada oo loo marayo jidka ka faa'iidaysiga dhaqanka weydda ah ee diblomaasiyadda sacuudiga iyo gefkii weynaa ee qar-iskaxoornimada ahaa ee ay geysteen raggii u dhashay sacuudiga ee fuliyo howlgalka turkigu waxa uu awooday inuu u dusiyo caddaymaha kuluglahaanshaha si dhibicdhibic ah isaga oo culays caalami ah oo aan horay loo arag saaraya riyaad kana fogaanaya inuu iska horimaad toosa la galo islamarkaana uu rogaya wixii dhacay inay ahaayeen midhaha dhibaatada si uu u helo fursad uu dharbaaxo taariikhi ah ugu dhufto boqortooyada oo ah dawladda ugu weyn ee hadda kula tartamaysa hoggaaminta gobolka maxamed bin salmaan ma halmaamin wixii ay samaysay ankara sidaas awgeed waxa uu sugay inta ay ka imaanayso fursad ku habboon in laga falceliyo ilbiriqsigii uu sugayay waa yimid kadib markii turkigu dhaqaaq milatari oo ka dhan ah kooxaha hubaysan ee kurdiyiinta gooni ogoosadka ah ka bilaabay waqooyiga suuriya sidii dhacdayna dhammaan sacuudiga imaaraadka iyo masar waxa ay dhallaacayn u jeediyeen waxa ay ku tilmaameen xadgudubka turkiga ee madax bannaanida iyo midnimada ciidda suuriya jaamacadda carabta ayaa isugu timid ulana tacaashay si ka baxsan caadada si ay u cambaarayso waxa ay ku tilmaantay xadgudubka turkiga ee dhulka carbeed eeddii iska hilmaantay joogitaanka maraykanka ruushka iiraan faransiiska iyo ingiriiska ayaa sidoo kale waxa ay ishilmaansiisay in dhinaca uu turkigu la dagaalayo uu yahay gooni ogoosad asal ahaanna uusan bacrab ahayn marka la isku soo xooriyo dhammaan aragtidaas dadka falanqeeya waxa ay u akhriyeen sidan ma ahayn jacayl loo haya kurdiyiinta hubaysan balse waxay ahayd belo iyo jab lala rabo turkiga ka aragtida duwan inta kale sidaas ayay ku wada furteen sacuudiga iyo turkigu fasal cusub kadib hardan qaatay muddo dheer kaas oo jiriddiisu ku laabanayso dhowr qarni ka hor waxaana suurtagal ah in saamayntii uu ka tegey aysan dhammaanin wakhti dhow haddaba sidee noqon doonaa qaabdhismeedka hardankani mustaqbalka haddii aad u aragto in muuqaalada noocani oo kale ah aad wax ka faa'iidayso leeg saar si aan u aragno cadadda tirada danaynaysa mahadsanid